aniga siyaasadda hore uguma jirin waxaan ahaa shaqaale dawladda yani ilaa iyo 15 sano ugu dambeysay ahaa marka siyaasadda hadda ugu horeysa runtii local ahaan waan ku jiray ilaa wadankan siyaasadda dadna way ku shaqeeyaan dadna voluntary ahaan bay ugu shaqeeyaan marka kan xaafadeena waan ku jiray Sweden dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool wadanka qaxootinimo ay ku soo galeen kuwa waxaa jira wali sharciga aan qaadanin xisbigiina social democratkana waxa ay aad yani uga soo horjeedaan dadka magangeliya doonka ah waxa ay rabaan tiradooda inay dhimaan arrimahaas marka sidee rabtaa inay isugu keentid dadkii intoodina ay meel marto oo sharciyadii iyo wixii ay helaan siyaasadda xisbigana in aadan ka dulboodin sidee isugu keenaysaa labada dhinac horta runtii xisbigan social democratka waa xisbiga runtii lagu yaqaano inay u dagaalamaan mar walba sinaanta bulshada dhinacyada kala duwan sidana saa og tahay qaxooti badan may qaateen aniga waxaan ka shaqeeyaa hay'adda socdaalka migration boardka baan u shaqeeyaa arrinta ugu weyn oo hadda siyaasadaba debateka ka jiro waa arrintaas migrationka ah arrin oo fudud ma haddii dhanka Soomaalida la fiirina Soomaalida runtii dhibaatada ugu weyn hadda haysato waxa waaye lama aqoonsana baasaboorka Soomaalida marka dadka waxa lagu haysto dad badan inta joogsan 6 sano jooga baa jira oo weli sharcigi la siinin ama loo diiday bal dhaho wadanka ka baxa taasina waxa keenaysa qofka ma bal cadeyn karaba meeshu ku imaada baa leeyahay runtii way ficnaan lahayd dadkaas inaan u dadaalo maadaama aan khibrad u leeyahay inaan ka soo shaqeeyo qaybta hay'adda socdaalka migration boardka taasna waxaa looga shaqeyn karaa in baasaboorka Soomaalida horta kow la aqoonsado saad u ogtihiin Norway way aqoonsatay baasaboorka Soomaalida wadamo kala jira aqoonsaday baasaboorka Soomaalida ka barni ahaan maadaama aad rabtid baarlamaanka inaad gashid arrimahaas maxaa rabtaa inaad ka qabatid horta arrimahaas waxaan rabi lahaa hadday isu haddaan soo galo baarlamaanka inaan mooshinno ku qoro oo yani waxaa la fiirin karaa saalooyinka waxaa laga soo qaadan karaa wadamada kale oo baasaboorka Soomaalida aqoonsadeen maxaa keenay wadamada kale inay aqoonsadaan hadda fiiri Norway camal way soo baareen way arkeen inuu jiro system oo baasaboorada iyo lagu bixiyo identity cardada kala duwan marka waxaan isleeyahay runtii arrin u baahan waa in qasab mooshinno laga qoro laakiin hadduusan qof ku joogin oo wixii Soomaalida ay u baahan yihiin yani qof aan wadin hadii jirto arrintaas aysan jirin way adag tahan u maleynayaan inuu qof kale arrintaas yani wax ka qabto labadiinni u sharaxan xildhibaannimada marka codadkiina maxaa isugu dari weydeen oo hal qof u taageeri weydeen intee codadka aad Soomaalida ka rabtaan ay noqon lahaayeen codad kala jaban runtii way ficnaan lahayd laakiin haddii si kale loo fiiriyana Soomaalida Sweden joogta aad u badan yihiin marka aan soo sharaxay aniga ama soo sharaxayeen xafidayda maan ogeyn dad kale sharaxan yihiin laakiin saasoo tahayna runtii qof walba isaa is og hawshan baarlamaanka haday noqoto ama hadduu soo sharaxo ama siyaasad ama isaa qofka is og inuu hawshan ka bixi karo in kale